wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamuud Xayir Ibraahin ayaa soo gaaray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaana ku soo dhaweeyay gagada diyuuradaha caalamiga ah ee Minneapolis St. Paul International Airport qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota halkaasoo la og yahay inay ku badan yihiin jaaliyadda gobolkan jaaliyadda ayaa waxay isugu jireen odayaal dhaqameed siyaasiyiin aqoon-yahano iyo waxgarad kale waxa uuna la hadlay TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel waxa uuna uga warramay wasiir ku-xigeenku ujeedada booqashadiisan iyo waxa uu u yimi mudane Maxamuud ku soo dhawow gobolka Minnesota ayaan ku leenahay maxay tahay ujeedada booqashadan aad ku timi gobolka Minnesota ay ku badan yihiin jaaliyadda Soomaalida waa mahadsan tahay aad baan kugu mahadcelinayaa TV-ga Somali Channel sidoo kale waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa odayaasha iyo waxgaradka ee jaaliyadda Minnesota runtii farxad bay ii tahay markii koowaad oo aan Mareykan imaado weeyaan markii koowaad oo magaalada ay ku badan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed aan soo booqdo weeyaan waxaad ka warqabtaan wafdiga hogaaminayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa booqasho ku yimid dalkan Mareykanka wafdigaas ayaan ka tirsanaa waxaan halkan u imi jaaliyadda inaan la kulmo uga warbixiyo xaaladii dalku uu ku sugan yahay sidoo kalena aan xog waraysi la yeelano xaaladooda waxaa igu soo biiri doonaa xubno ka tirsan golaha wasiirada oo iyaguna berito soo gaari doona halkan annagoo kala qaybgeli doona jaaliyadda xuska maalinta 1 Luulyo waxaa sidoo kaleeto aan jaaliyadda la wadaagi doonaa xaaladii dalku sugnaa iyo booqashadayadii aan halkan ku nimid wixii aan kala kulannay aad baa u mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim halka waxaan u nimi inaan soo dhaweyno wasiirka Maxamuud Xayir Ibraahin oo noogu yimi booqasho gobolka Minnesota aad baan ugu faraxsanahay maanta uu yimi gacmo furan baan leenahay ku soo dhawow taasina waxay noo cadeynaysaa maanta inaanu leenahay dawlad la ictiraafsan yahay maadaama ay wasiiradooda ka soo degeen meelaha ugu wanaagsan adduunka Ameerika mid tahay marka hambaliyaan leenahay aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum